السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal meel kasta adduunka joogtiin ku soo dhawaada koorsadani FB. casharka maanta ku qaadayna waxa weeyaan formatting string. waayahay stringyada inaan qaabeyn macnaha formatting waxaa qaabeyn macnaha inaan qaabeyno aan nidaamin macnaha waayo far waaweyn aan ka dhigno mar far yar aan ka dhigno macnaha sidii aan doono inaan u qaabaysan karno macnaha waayo FB waxa ogtiin waxa weeyaan maaragtay marka aad soo geliso string macnaha waayo saarta inaan ka dhigo macnaha qaabaysan karto macnaha waayo marka formatting waxaa qaabeyn macnaha inaan qaab u sameyn karno string ama jumladii ama xarfi aan soo gelinay way program inaan qaabay karna macnaha way aan dhigi karna programka mar xarfo waaweyn ka dhig mar xarfo yar ka dhig mar isku dhaxqas macnaha saarta aan ka dhigi karna macnaha way marka cashkan kaas aan ku arki doona macnaha way hadal aan ku dalnay way baraadkan aan sameynaa kow aan sameysana variable macnaha way على magac ay leeyahay variable way as ay leeyahay waxay ka dhigtaan leeyahay string way kadib waxaa leeyahay nothing way waxba ay wuxuun ay leeyahay macnaha way macraba qofka inuu soo gasbana kadib waxaa leenahay amar ayaan bixinay macnaha waxaa leenahay console dot way right line ayaa leeyahay macnaha way enter ayaa leeyahay waxaa leeyahay fadlan geli magacaada way fadlan geli magacaada ayaa leeyahay macnaha fadlan geli magacaada macnaha way kadib hoos ayaan soo baxaa macnaha way kadib waxaa leeyahay way kadib qofka userka markuu soo gelsho variable lagu shubi lahaa sheegay macnaha waxaa magac way waxay inoogu shubtaan leeyahay wixii userka soo gelsho macnaha console dot way ama dhibic way kadib way calaamad waxa raacinaya way hay bish xidhan macnaha way ama brackets way kadib waxaa leenahay marka waxaan rabnaa qaabeynta inaan sameeyno waxaa leenahay console way waxaa leenahay console dot right line ay kadib halkaas ayaan geli macnaha la socmana ku marka waxaa leenahay noo soo daawada variable kan macnaha magac variable kan magac wixii ku jira noo soo daawa macnaha way markaas waxaa leenahay dhibic ayaan raacnaa dhibic la socmana waa halkaan marka waxa ku jira function aad u fara badan macnaha waxaa leenahay markaas to amidu to way to lower midido xarfaha hoos iga dhig macnaha to lower soo midid way marka xarfo yar iga dhigan laamina si uusan way taas u dhacdo waxa la tira si programka qurux kali u noqdo way u sameeyo waxa leenahay line u dhaxaysiin macnaha qoraalka uu soo geliyo userka iyo qoraalka way line u dhaxaysiin save ayaan leeyahay marka restart alayhi bal ila socmina way ama run ama saas u taamina waa kana macnaha wuxuu yiri fadlan geli magacaada waxaa leeyahay maxamed way enter ayaa bal u socdo way isla farta iyo soo daamina isla maxamed hadda farta way yarta xalay markaas waa weyn iga dhigaya leemina way hadda lower ay aad way isla kan ayaa maartay ku bilaamina meeshaas to lower aan u bedela to upper mina way ila socdo way kadib asigan la code soo leeyahay way control v ayaa leeyahay hoos ayaan u dejinaa control v ayaa leeyahay way iska tirtiraya waxaa leeyahay to upper soo midid to upper macnaha farta waa weyn ka dhig ayaa leeyahay macnaha way save ayaan leeyahay haddana على start la soco sumid waxaan gelin magac sicid magac fadlan ma gelin magacaada waxaan gelinayaa maxamed sumid waa ka samido abarkiisa kale macnaha farfa waaweyn kale far yar iyo far waaweyn macnaha way hadaan farta si fiican u soo weynayna burburtis tag way font tag way صدي اللي حاجة رجع لها منها فرت فع وونه
وكان معنا سو مديد محمد ير إيه محمد وين معنا واي واي كان يحر معناها صاصع منها دارت إن قابلت سترينجا هدو أعرف أنا فرير إنه صوت ضابع في البرنامج كان فروين أو صوت ضابع كان واي وأعرف معناها وقت وخلد ولي منها مركا سان هذا حب كان لوصل معناها اللي سميها منها واي مركا أي تيم المجر منها أدل صعد منها برات كذا سميها واي يوتيوب كان وأنا برودكشن واي سبسكرايب سارة واي لايك كومنت وكاس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.